meeshii reer galmudug ay ku guulaysan lahaayeen ama ku halaagsan lahaayeen intaan dhaarta u gudbin dhaartu waxa weeye dastuuri weeye sharciga islaamku waa dastuuri baa leemidaan qof xaqkiisa ku dhaaranaya inuu ka maqan yahay ama uu xaq kale qofku leeyahay ma jiro laakiin waxaa loo dhaaranayaa xilka laydin magacaabayo adkaynayo laydinku adkaynayo intaa weyn ujeedadiisu ku raalli ah waxaad ku dhaaranaysaan waa magacii ilaahay idin abuuray idinla xisaabtamaya laxda bilaxda wax walbada adduunya aakhira soo martay idinla xisaabtamaya maxkamadda ilaahay oon lagu kala leexayn laguna kala lumayn waxna ku qarsoomayn baad ku socotaan qofkii xaq ku dhaarato oo say u dhaaratay u fulida waa guulaysatay ummaddeedana waa badbaadisay qofkii ku dhaarata wixii ay ku dhaaratay waxaan ahayn samaysana iyadii jeebkeeda weyn insha allah hadda waxaan bilaabaynaa dhaartii ala dhagaystay hadda loo dhagaysto adinkoo xildhibaanadii baan idinla hadlayaa idinla qinayaa kelmada meesha ku taalla waxaan ku dhaaranayaa adiga hadlaya ugu qof walbow waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka dalku ku jirto dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo shuruucaha kale ee dalka والسلام عليكم مقع إلهي وحن دارنيا مقع إلهي أنيقا إن آن حلكيغا كوغدانيو سدا عدا إن آن حلكيغا كوغدانيو سدا عدا ودنتا دينتا ددكا iyo dalka ku jirto ودنتا دينتا ددكا iyo dalka ku jirto awrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug دوريانا دستوركا دولة جولاتكا قلمود هي كان قرنكا هي شروعها كلا دلكا إن آن حلكيغا وجودانيو سي داعد oo danta diinta dadka iyo dalku ku jirto dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo kan shuruucaha kale ee dalka والسلام عليكم waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalka ku jirto dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo shuruucaha kale ee dalka والسلام عليكم si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalku ku jirto dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo shuruucaha kale ee dalka السلام عليكم الله يرسل الله waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalku ku jirto dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo shuruucaha kale ee dalka dadka iyo dalku ku jirto